السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك كسر هذا مركلة شاعية أكاديمي فرصة ما تدين إنه يحوي جامعة كوتالا دلك كندا المقعد إلى ساسكتشوان يونيفرسيتي وجامعات كم إذا جامعة قيمة بدن دلك كندا إن من دافع الدنيا وحين نصرك إن شاء الله تعالى قيد كم إذا وحياة جامعة بحسه هي نصلا أركضنا هذا اللي waxay bixin doontaa insha allahu tacaala scholarship free haddii aad doonayso sidoo kale shaaciya academy si boqolkiiba boqola inuu kugu siiyo fursada tan iyadoo video step by step kugu sharaxay lagu soo diro keliya iibso koorsadeena haddii aad doonaysana inaan anagu ku xareyno waxaad bixi doontaa keliya $25 halka haddii aad tan kaga tago Saskatchewan University waxay ku taalaa dalka Canada ay ku taalaa sidoo kale xakiin maamul saaxiibada inaan la wadaagto linkigan ardayda asxaabta danaynaya inay horumariyaan aqoontooda waxaa laga yaabaa inaad jaanis ama fursad u siisino ku guuleysaan fursadaad u qiimo badan haddaba dhammaan ardayda doonaya inay helaan deeq waxbarasho bilaasha waxaad haysaa fursad inaad horumariso riyadaada inaad aado dalka Canada ama aad wax ka barato mid ka mid ah jaamacadaha dalka Canada ku yaala gaar ahaan jaamacadda Saskatchewan ayay fursadan tan bixinaysa haddaba fursadda tan insha Allah taala taariikhdan si gaar ah aqrisanaysa fursadda tan waxay u furan tahay dhammaan ardayda danaynaya ama doonaya batch master iyo maxaa la yiraahdaa PhD intaba chanceska kan uu furan yahay haddii si gaar ah aqriso insha Allah taala waa xogta ku saabsan jaamacadda haddaynu ka soo tagno xogta jaamacadda ku saabsan faahfaahin ku aad deeqda waxbarasho dalka martida loo yaaba Canada deeq bixiya waa jaamacadda Saskatchewan jaamacadda bixinaysa waa jaamacadda Saskatchewan heerarka waxbarasho bixinteedu waa batch master iyo degree intaba ardayda codsan karta waa dhammaan ardayda dunida la codsan karta da'da ma jirto da' gaar ah qofka lagu xirayo luqadda shahaadada luqadda Englishka shardi ma laakiin haddii aad haysato waad gudbin kartaa haddii aadan haysan shahaadada luqadda waa codsan kartaa shahaada la'aan waqtiga kama dambaysa aad codsan karto waa December bisha 12 kowdeeda adwaalidmo waa muddo bil ayaa jaanis sana ay noqonaysa adwaalidmo qoraal aad ku xiisa gelinaya haddaad doonayso inaad xareysato adigoo raacaya talaabooyinka sharaxaada faahfaahsan ee aan kugu siino video step by step kugu sharaxayo haddii aad doonayso waxaad iibsan doontaa kaliya koorsadan oo $6 then si free ayaa ku heli doontaa haddaad doonayso inaad iibsato koorsadan halkan ka iibsan kartaa haddii aad doonayso inaad kusoo biirto gurubyadana WhatsApp iyo Telegram halkan kaga soo biiri kartaa adeegyada bixiya shaaciya academy waa adeeg aad u badan waxaa kamid ah dalbashada deeqa waxbarasho codsiyada volunteerska qaabka loo dalbado sidoo kale wuxuu ka caawin doonaa diyaarinta CV-yada warqadda dhiirigelinta warqadda motivation letter loo yaqaan ama personal statement warqadda loo yaqaan recommendation letter warqadda loo yaqaan haddii aad tahay arday dhiganaya daraasaadka xilliga ugu dambeeyay ee doonaya in laga caawiyo dhanka diyaarinta buugga thesis-ka insha Allah taala waynu ka caawin doonaan haddaba kulliyadaha iyo takhasusyada ka banaan ee fursadan ku saameyso waxa weeye dhammaan kulliyadaha ugu badan inuu danayno weeye waxaa kamid ah maamulka iyo ganacsiga oo business administration waxaa kamid ah economic dhaqaalaha waxaa kamid ah cilmiga nolosha iyo chemistry biology chemistry bay noqonaysaa waxaa kaloo kamid ah caafimaadka iyo biology ay noqonaysaa iyadana sidoo kale waxaa kaloo ka banaan sayniska iyo maxaa la yidhahdaa environmentiga iyo deegaanka cilmiga dhirta waxaa kaloo ka xanaanada xoolaha waxbarashada education sharciga luqadda iyo isgaarsiinta telecommunication iyo languageska sidoo kale waxaa kamid ah taariikhda iyo dhanka thaqaafada iyadana waa kulliyadaha ka banaan ayay noqonaysaa waxaynu saraaki doonaa insha allahu tacaala Saskatchewan maalgelinta ay bixin doonto waxaa jiri doonta insha Allah taala scholarship dhowra ilaa u suuragelin karta qofka inuu maxaa yiraahdaa deeqda waxbarasho uu ku barto markii uu tago dalka Canada haddaba ugu horeyn deeqdan koobaad waxay bixin doontaa $40,000 afarta sano wax baranay waa dadka baashka micnaheedu waxa sanadka $10,000 ay deeqdan bixin doontaa sidoo kale waxaa jira counselor scholarship idin oo bixin doontaa $30,000 taana micnaheedu waxa sanadkii 7,500 ay ardayga siin doontaa sidoo kale waxaa jira laba deeq kale oo min 24 sano muddada ay socota haddaba afartan deeq mid kamid ah ayaa laga yaabaa inaad ka guuleysato sidoo kale waxaa jirta ardayda danaynaysa ama barata masterka iyagu waxay heli doonaan $18,000
labada sano ay dhiganayaan sidoo kale kuwa doctoraga dhiganayaanna waxay heli doonaan insha allahu tacaala $22,000 saddexda sano ay dhiganayaan haddii aad doonayso waxaad ka arki kartaa faa'iidooyinka ay helayaan dadka baajka halkan aduu ku dhufanaya sidoo kale faa'iidooyinka ay heli karaan dadka masarka iyo doctoraadka ama PhD-ga halkan ayaa ku dhufan doontaa haddaba maxaa lagaaga baahan yahay si aa uga faa'iidaysato waxaa lagaaga baahan yahay keliya dukumentiyada lagaaga baahan waxaa weeye inaad buuxiso codsiga deeqda inaad la timaado sawir teesara nuqul baasaboorkaaga ka mid a nuqul ka mid a shahaadada qalinjibinta transcriptkaaga dugsiga sare waa haddii aad dalbanayso shahaadada heerka koowaad ee jaamacadada baajka haddii aad doonayso jaamacada masarka haddii aad dalbatana waxaa lagaa doonayaa shahaadada qalinjibinta iyo bayaan ku aadan ama transcript ku aadan shahaadadaasi sidoo kale nuqul ka mid a haddii aad doonayso PhD idan waxaa lagaa doonaya masarka CV iyo waxaa lagaa doonaya motivation letter haddii aad doonayso diiwaan geliso halkan ayaa ku dhufanaysaa haddii aad doonaysana video kuusoo dirna waan kuu sheegnay haddii aad doonaysana channelskaaga biiriso oo inagaan ku xariirnana waad ka faa'iidaysan kartaa insha allahu tacala waxaan rajeynaya inaad noqon doonto mid ka mid a dadka ku guuleysa fursadan aadka qaaligu ah guuli goobnimo ayaan ku rajeynaya insha allah